الله والصلاة والسلام على رسول الله. دعاء استيدي لباتنات سلسلة الدعاء هي دهرين. دعاء ودعاء ذو قابا معنى هانسي آذو حال دير مضنة إن عربك وقفكو كوحيو سيدا عاديك دعوين كينا مركين كسو قدبين إن سلسلة دان سدح بيوقيب سمان إما إن كتاب كسو صارنو وهي آيات قرآن تهي أو إنكو عين شخص رضينو أما عين قفينو وإن نفتين وقدو عيسنو وهي دعاء النبي كدو عيستي تهي إما إن الكتاب كسنة كسو صارنو نبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إيو إما إن دعوينك dadka wanaagsani ay ku ducaystaan ee afarka iyo saameynta ay ka arkeen aynu kasoo dheehgano. Marka ducadani waxay ka mid tahay ducooyinka lagu ducaysto casrigan ee laga arkay afarka ama saameynta faraha badan leh. As long as uu qofku markuu ducaysanayo naftiisa u ducaysanayo, afkiisa ku ducaysanayo ama si caami ah u ducaysto ama duco lafdi ahaan soo aroortay ha ku ducaystay aanay shirkiyaad iyo shubuhaad iyo waxa weeyaan wax khaldani aanay ku jirin oo wax mubaaxa oo la ogol yahay. Marka ducadan waxay odhanaysaa Allahumma ruddanii ilayka raddan jamiila, ilaahayow ii celi xaggaaga celitaan qurux badan oo la macno ah in qofka bani aadamka ah intuu adduunkan joogo ee uu ku jiro kaca qofka dambaabka mar wuxuu hagaajinayo mar wuxuu kharibayo maruu fogaanayo maruu soo dhawaanayo loolanka ugu badan qofka bani aadamka isagii ruuxdiisa ayuu ka dhex jiraa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. fujuur iyo taqwad baa mar walba loolan ku jira. maalin waad saxan tahay, maalin waad khaldamaysaa, maalin waad kacaysaa, maalin waad kufaysaa, maalin iimaankaagu maasha Allah tabaarakallah weeyaan, maalin kale wax weeyaan waa ka xaalkaagu. marka intuu qofku loolanka ku jiro mar badan waxa dhacda inuu galo xaalad qaflada inuu galo ruuxi oo shaydaankii iyo naftii iyo hawadii iyo adduunkii ay jiitaan oo baraarugiisii uu fogaado. marka ducadan ilaahayow ii soo celi xaggaaga celitaan qurux badani waxay ka dhigan tahay markastoon jiito shaydaanku i jiito ruuxdayda iyo naftaydu loolanka ay ga badiyaan adduunka aan ku dhexbaaho oon ku hafto ilaahu xaggaaga ii soo celi raddan soo celitaan jamiilan. haddaba jamiilka haddaynu dul istaagno waxay ka dhigan tahay marar fara badan qofku qafladda wuxuu kaga toosaa marka geeri dhacdo, marka qof aad jeceshay dhinto, waalidkaaga ama ilmahaaga ama xaaskaaga ama ninkaaga. marka businesskii aad soo wadeen tanoo sanadood ay mar kaliya ka kaa noqoto ayaad yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi xasuusataa. markaad xanuunsato ee balaayo ku asiibto jirkaaga iyo awooddaada cajsi galo ayaad ilaahay xasuusataa. marka wax kugu adkaadaan ee albaabadii oo dhan soo xirmaan baad yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi tiraha. ilaahay quraanka muxuu ku leeyahay وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. maalinta bani aadamka dhibaata ay qabsato ayuu dee baryo baraaba isagiyo jiifa iyo isagiyo fadhiya iyo isagiyo soconayo taagan markaasuu yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi. maalinta ilaahay ka faydo waxa weeyaan dhibaatadiina kiiba maahaba waxaabuu soconayaaba uu jeestaynaya kaanama inuu ki ilaahay shalay baryay aanu ahayn. ilaahay marar kale wuxuu leeyahay وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. maalinta bani aadamka loo nicmeeyo ee khayr laga dhargiyo waabakiyo waxaan ku yidhi bismillaah aan soo jeesanayn baad moodayn waxa weeyaan qoorta muruq ka galay oo sidaa waxaan ku yidhi isu barbarinaya oo isu jeedinaya hebel aan ahayn ama heblaayo aan ahayn. maalinta dhibaata qabatana faduu ducaa'in cariid markaasuu duca lasoo kala baxaya yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi oohin ya baroor. marka baroortaas iyo oohintaas yaanay noqonin mid ay inaga keento masaa'ibta iyo adeegyada noloshu ay noqon yani dad ilaahay subxaana watacaala mar walba adoonnimada iyo kalgacalka iyo jacaylka ugu xidhan ugu sidkana u baryaya. oo fi saraa'i wa daraa markay adag tahay iyo markay fudud tahayba labadaba ilaahooda dad ku xidhan inay noqono. marka ilaahayow markaan qaflad galo dadka musiibo lagu rido ee musiibadaasi qafladda ka toosiso ee marka qof dhinto
ama maalkoodii burburo ama furniin dhaco ama ilmo dhinto ama waxa weeyaan xaal kale adkaado ama caafimaad darra timaado un ku xasuusta ee ay qafladii kasoo kicisa kuu soo dhawaada un yaanan noqonine ruddanii ilayka raddan jamiila. markaad aragta anigoo sii yar taraaraxayaba ilaahu gacanta iisoo qabo si kalgacal leh iisoo celi adooni fidnaynin adigoo masaa'ib kale igu itixaamin adigoo si kale ii xanuujinin ilaahayo ii tarbiyadee si kalgacal iyo raxmadi ay ku jirto gacanta iisoo qabo markaan sibibixdaba ayay ka dhigan tahay. allaahumma ruddanii ilayka raddan jamiila. allaahumma allahayow ruddanii iisoo cesho yani ilayka xaggaaga ilaahu iisoo celi raddan soo celitaan jamiilan qurux badan oon cunfi iyo ciqaab iyo cadaab iyo waxa weeyaan masaa'ib kaloo adduunyo igu soo degta lahayn. ilaahu markaad aragto anigoo bani aadamtinimadaydiyo jilaacaydiyo maaragtay cilmi daradayda aqoon daradayda anaa sibibixday adduunkii sii yarjiitay meel kale laiga gacan haadiyeyba ilaahu gacanta si kalgacal iyo rafad iyo raxmad iyo xilmi leh dulqaadle ilaahu iisoo qabo ayay ka dhigan tahay. allaahumma ruddanii ilayka raddan jamiila. ilaahu xaggaaga iisoo celi soo celitaan qurux badan ha itixaamine kalgacalkaaga iyo raxmadaada igula dhaqan oo igu gacan qabo ayay ka dhigan tahay.